السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا قالي سو دوادا وقيبت اللحاد شركدني نفس iyo nabar jacayl arintii ugu weyneed ee ugu yeeray kuna mudane muddo badan waxay ahayd inuu helo lambarka telefoonkeeda gacanta. Guuleed wuxuu galay arar dheer wuxuuna ugu sheekay inuu Cabdilxiin yahay wiil wanaagsan hase yeeshee dagaalamay. Wuxuu Samiiro ku canaantay in aanay ka soo wardoonin oo aanay dugsiga la soo xiriirin. gabagabadiina wuxuu Samiiro ka qortay lambarkeedii waxaanu halka ka unkay xiriir telefoon oo isku bedeli doona xiriir jacayl iyo mustaqbal. Is-ariga ugu horeeyay ee ay hasaabo ugu kulmaan Samiiro iyo Guuleed wuxuu ahaa habeen Jimco ah waxayna u wada casho tageen hoteelka halka ay ka fadhiyeen meel aan sida u sii dheerayn ayay carruur yar ku ciyaaraysaa. hase yeeshee Guuleed wuxuu dhibsanayay jabaqda agabka carruurta ku ciyaarto ka soo baxaysa. waxa kaliya ee dhageyso in ay maqlaan uu jeclaan lahaa oo codka macaan ee xabaabta yar ku jirto ee ka soo baxaya afka Samiira habeenkii taariikh nololeedkeeda oo dhan intii ay ka gaadhi karaysay ayay ugu sheekaysay iyadoo badhanka kaga jirta sheekadii ayay saacada telefoonkeeda isha ugu dhufatay. goor sheegtadu waxay xaaladda ku fiiqaysaa 6 saac oo habeenimo waxaana xasuusatay in ay hoteelka soo fadhiseen 7 fiidnimo. intay mar kale joojisay hadalkii ayay tiri Guuleed waa goor dambe waxay la wanaagsan inaan sii dhawaano marar kale oo badan wayna kulmi haddii xagga Rabbi laga helo. raalinaga ahaw haddana kulankii ugu horeeyay sheekooyin dhaadheer oo dhibaatooyin badan ku jiraan kuwa qarqiyay. Guuleed ayaa yiri dhab uma arko walaal runtana waa qadhaadh laakiin lagama reysto imankana waan sii kacaynaa. khamiista dambe ayaa inoo balan ah haddii Rabbi xukmo. waxba yaa sheekadu la sii durkane Samiiro iyo Guuleed markay 3 bilood xiriir ah saawaayeen oo waliba 3 bilood kala ahaayeen June, July iyo Agosto. cimil ahaan ah bilaa uu kulka badan Djibouti. Samiiro waxay Guuleed u keenay jirtay baraadad ama jalxad biyo qabow iyo sharaab ku jiraan saacadu markay tahay 9 habeenimo ee xiisada qaarna uu dhigay qaarna u harsan yihiin. habeen Talaata ah ayay Samiiro gabar ay aad iskugu dheeraayeen arooskeeda tagtay. waxay guriga timid goor dambe oo qiyaastii 6 saac iyo 40 habeenimo ah. iridda gurigood markay garaacday ayaa si dhaqso badan looga furay waxaanay daaradda guriga ku aragtay hooyadeed oo ilmada ka tiraysa walaalkeed Cabdilxiin. markiiba Samiiro waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay in Cabdilxiin uu dagaalamay oo cidka xoog badan ay isdagaaleen. intay shandad gacmeed ay sidatay tuuratay ayay dusha kaga soo dhacday hooyadeed iyo walaalkeed oo dhabta isku saaran. Samiiro waxay ku dhawaaqaysaa yaad isdagaasheen. Cabdilxiin ayaa cod kale ku yiri cidna ismaanu dagaalin laakiin macallinkii Guuleed ayaa dhintay oo wadnuhu istaagay. saacadii ayaa tagsi loo doonay oo Samiiro hooyadeed ilowda xaalka Cabdilxiin waxaana Samiiro loo qaday dhinaca dhakhtarka. Samiiro 2 maalmood ayay suuxsaneed 3 maalmood linta kama ingegin dhaheeda. habeenkii uu geeriyooday Guuleed waxaa dhacayay kuleel badan. Samiirana maadaama ay ka mashquushay oo aanay sharaabkii qabooba u geynin isla markaana aanay u sheegin inuu meel kale wax ka doonto oo uu sugayay waxay u qaadatay inuu xaalad dartii wadnuhu u istaagay. geerida naxdinta lahayd ee ku timid macallin Guuleed dad badan ayaa ka naxay oo arday u badan. qaar kalena waxay joojiyeen waxbarashada dugsiga si aanay u soo xasuusan Guuleed. boqolaal qof oo aqoon u lahaa Guuleed wali waxaa qalbiga ka guuxaya sheeko macnaantii furfurnaantiisii kalgacalbadnaantiisii iyo akhlaaqdiisii. wali Axmed ayaa warbixinta iyo taariikh nololeedka Samiiro xididka ka waraabinaya. Maxamed Amiine bal aan eegno mahadada ugu dambayso ee uu Axmed Samiiro ugu soo wariyo. Maxamed Amiin 17 September 2010 Samiiro waxay ka soo kabatay dhaawac ay gaarsiisay geerida Guuleed waxaana u xumaan xidhatay in ay nolosha halka ka sii ambaqaado oo xiriir kale bilowdo. dhinaca kale Samiiro waxaa dadejinaya haweenku waa guud tirsadaane waxay maagan tahay inay ka faa'iideysato cimrigeeda. si kastaba ha ahaatee waxay sheeko wadaageen wiil kale oo reer Boorama ah Djiboutina booqasho ku jooga magaciisuna ah Keenan. run ahaantii Keenan wuxuu la dhacay hubqaadka Samiiro ama qaab dhismeedka jirkeeda. qodobada ay Samiiro ugu soo istaagtayna waxaan ugu mudnaa in uu ku yiri Djibouti iyo nolosheedaba waan ka dheeraanaynaa oo Somaliland ayaan ku wada noolaanaynaa dhulku qabo ayaan isla tagaynaa. maadaama Samiiro dhowr dhacdo oo qalafsan ay Djibouti kala kulantay waxay door mooday in ay ka dhigato rogato. 23 June 2011 waxaa safar soo galay Keenan. Samiirana waxay isla meel dhigeen in ay bil kadib ka soo dababaxdo. 23 July 2011 Samiiro waxay ka soo ambabaxday magaalada madaxda Djibouti iyadoo ku sii jeeda magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama.
kahor intaanay soo bixin waxay la xidhiidhay Keenan si uu safarkeeda uga warqabo isla markaana u soo dhaweeyo muddada bisha ahayd ee ay Keenan iyo Samira kala maqnaayeen xiriirkooda wuxuu u badnaa internet inkastoo marka qaarna telefoon-kooda hadli jireen Samira iyadoo reerkooda u sheegtay in ay xaga baxayso oo kaliya misna waxa uu qorsoonaa in aanay Djibouti dib ugu soo noqon maalin Khamiis ah galab casar gaab ah ayay Samira ka soo baxday Djibouti gaari wuxuu habeenkii oo dhan soo guuraya tuulo yar ayuu gaarigii istaagay si rakaabka gaariga saaran uga casheeyaan ama uga shaahan Samira markuu gaariga sida u istaagay waxay tuulada uga kacday dhinaca iyo koonfur galbeed waxayna Samira raadinaysay suuli waxay meel dheer ka aragtay waxay u maleynaysay inuu suuli yahay markii ay ku soo dhawaatay waxay kala garan weyday meel laga galo wuxuu u muuqday mid aan dhawaan la isticmaalin oo sii dumaya Samira sida u doodoonaysa albaabka suuliga ayay waxay maqashay qaylo dhawaqeed aad u sareeyo waa ay yar oo qiyaasay 2 habeen ka hor oo meesha ayadu ku dhashay Samira oo weli naxsan aan garanna waxaan ay ku istaagtay ay qayliyay ayaa waxa ku soo booday ayada dhashay ayadan yar mise Samira ay lugta midig muruqa kubta sidoo dhan yahay kala baxday